maamulka galmudug ayaa markii ugu horeysay ka hadlay isbaarooyin la sheegay in ay yaalaan deegaanada uu ka arimiyo maamulkaasi wariyahayaga xasan maxamed cismaan ayaa warkan cadaada ka soo diray madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi oo ka hadlayay kulan ay maanta golaha wasiirada galmudug yeesheen ayaa waxa uu sheegay in ay ka wada hadleen sidii loo qaadi lahaa isbaarooyin yaala deegaano ka tirsan galmudug iyo isku dhafka ciidanka dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa sidoo kale sheegay in ay jiraan wada hadallo socda galmudug iyo hal sunna runtii waxa la isla jeexay arrimaha amniga oo ugu horeeya maarta afkii loo dhisay ciidamada galmudug dibaabeen fiican lagu sameyn lahaa qaabkii maartay loo qalabeyn lahaa sidii maartay loo waafajin lahaa ciidamada Soomaaliyeed oo maartay dhisayo ama istaraatiijiyada ciidamada Soomaaliyeed iyo ciidamada galmudug sidii isku waafajin lahaa haddii aan lahayn booliis haddii aan lahayn military haddii aan lahayn daraawiish iyo noocyada kala duwan oo kale oo dhan nooc walba oo yihiin runtii waxaa laga hadlay arrimaha dibashiinta saa la socotaan galmudug waxay u baahan tahay dibashiin dhaba dadkeeda in la dhex dhigo taas oo weli aan la gaarin sidii la rabay ayadoo saddex waxyaabood laga soo qaaday inay ugu waaweyn yihiin midda koowaad waa maaragtay arrimaha gaalkacyo iyo maaragtay iyo arrimaha ahlusunna wal jamaaca ayadana iyo maaragtay arrinta oo interclanka oo maaragtay qabiilada dhexdooda ama aanooyinka qabiilka oo dhib badan ka jiro ama qabiilada iyo maaragtay kala duwan sida magaalooyin badan ka dhacda ama dad badan isku laayaan runtii arrimahaas waxaa soo bandhigay wasaaradda dibashiinta dastuurka ayaa waxay soo bandhigtay qorshaheeda dhabta ah uga aadan arrimahaas waxaana la qaadanay in maalinka sirteeda maaragtay dib u soo celiso si maaragtay loo dhammaystiro arrimahaas istiraatiijiyad dhabana looga heli lahaa galmudug dibashiinteeda iyo sida loo wajahayo iyo sida ay noqonayso nooc walba ay tahay arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada kalena ayagana waxaa wasaaradooda ay soo bandhigeen sidii maaragtay wax looga qaban lahaa iyo sida yihiin iyo heerarka caafimaad darro ee ka jira deegaanada iyo waxbarashada oo dhan runtii waxyaabaha maanta looga hadlay shirkadaha wasiirada waxyaabahaas ahaayeen waxaana ka soo baxay runtii qodobo aad iyo aad dhaqankalo ah ugu muhiimsan maaragtay sida isbaarooyinka loo qaadi lahaa sidii amniga loo sugi lahaa iyo sidii dibashiin dhaba maaragtay loo geli lahaa xasan maxamed cismaan Somali News TV magaalada Cadaado.